Soomaaliya waa dal leh dhulbeereed aad u ballaaran. Dhulbeereedka Soomaaliya waxaa lagu sheegaa inuu yahay 441,250 kilomitir square. Waxaana dhulka Soomaaliya la beeran karaa 70%. Sidoo kale Soomaaliya waxay leedahay 2 webi iyo qorrax aan sanadkii oo dhan marnaba tegin, iyo cimilo wanaagsan oo dalagyo badan ay ku bixi karaan. xilligii gumeysiga Talyaaniga koonfurta Soomaaliya waxaa aad lagu abuuri jiray miraha iyo qudaarta uu mooska ugu horeeyo oo Yurub isagu loo iibgeyn jiray. Sidoo kale suufka ayaa aad loo abuuri jiray si warshadaha dharka sameeya ee Talyaaniga loogu iibgeeyo. sida ay qabaan dadka cilmiga beeraha ku takhasusay Soomaaliya dhulkeeda haddii sida ay tahay loo abuuro ku filan yahay quudinta dadka Soomaaliyeed. abuurka in wadanka uusan ku filnayn waxay soo saaraan localkaba uusan ku filnayn intaanba loo gaarin in dibad loo dhoofiyo ama wadamo kale la geeyo yani tayaxumo iyo wax soo saarka aad u yar. laakiin sidaas oo tahayna dadku ma isdiibin oo awoodooda wali waa ku jirtaa. waliba waxaa dalagyo loo dhoofin karaa wadamada kale, laakiin hadda Soomaaliya kuma filna abuurkeeda. intii burburkii ka dambeysay aad looma abuurin beeraha dalka sababo la xiriira caqabado badan oo iskaashaday. caqabadaha waxaan u kala saari lahaa shakhsiyan kullee 3 qaybood. qaybta koowaad oo ah caqabado la xiriiro cimilada adduunka isbedelayo. qaybta labaad oo ugu weyn caqabadaha aan ku aruuri lahayn waa qaybta loo yaqaan inputka ama waxyaabaha beeraha la geliyo. beeraha sida aad la socotaan waxay u baahan yihiin qalab in lagu falo, waxay u baahan yihiin qalab in lagu abuuro, waxay u baahan yihiin qalab in lagu soo gooyo. qaybta ugu dambeysana waa market wax la yiraahdo, waxyaabaha suuqa la xiriira, caqabadaha suuqa la xiriira. dalagga Soomaaliya ka soo gaa suuq dibadeed ma access mu leeyahay, tayadii ma la xaqiijin karaa oo suuqyadaas ay u baahnayeen. sanadadii dambe waxaa aad loo dhoofinayay liinta iyo sisinta oo hadda ayada suuq ka hesho wadanka Turkiga. si looga faa'iideysto beeraha waxaa lagama maarmaan ah in la helo aqoontii beeraha iyo abuurkii. waxaa jira caqabado badan oo isu bedeli kara fursado maalgashi haddii laga faa'iideysto. sector walba wuxuu leeyahay wax la yiraahdo taxo ama value chain wax la yiraahdo leeyahay. taxahaas in la maalgashto laftarkiisa u baahan shaqo badan u baahan. taxaha haddii aan la maalgelinin macnaheedu waxa efficiency-ga loo yaqaano ama waxa kordhayo qiimaha uu ku soo go'ayo dalagga Soomaaliyeed. marka haddii noqon lahayd kartoomeynta ama warshadeynta, haddii ay noqon lahayd gaadiidka, haddii ay noqon lahayd wadooyinka la marsiin lahaa, haddii ay noqon lahayd tayadii cidii ilaalin lahayd, haddii ay noqon lahayd shaqaalihii ka shaqayn lahaa iyo xirfadoodii sida sare loogu qaadi lahaa. waxaas oo dhan waa taxaha u baahan in maalgashi laftarkiisa lagu sameeyo. marka guud ahaan maalgashiga ku socdo beeraha Soomaaliya waa si lixaadsanaya, wuxuuna ku xiran yahay mar walba amniga iyo nabadda iyo soo kabashada dhaqaalaha waddanka ayuu ku xiran yahay, uu mar walba la jaan qaadaya. fursadahaasi jira ayaa u baahan inay ka faa'iideystaan ganacsatada, dadkuna ay uga faa'iideeyaan. ka faa'iideysiga kheyraadkeenna ay beeraha ku jiraan ayaa qayb ka qaadan kara shaqo abuurka iyo kobaca dhaqaalaha dalka. waxaa aad iyo aad u bannaan yani sektorka beeraha faa'iido badan ayaa ka jirto oo qofkii hadda xaaliyan la jooga yani investment ku samaysta inuu noqon doono dadka ugu lacagta badan 10 sano ama 20 sano soo socda Soomaaliya.